بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي هبو صاحبيال halkani waa Runsheeg TV waa bartaan YouTube ka kulanay saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn aan warkeedin kugu haynana waxa kamid ah Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo musharaxiinta mucaaradka siiyay fursadii ugu dambeysay oo ku saabsan xaaladda doorashada wasiir ku xigeenka gargaarka oo qaaday talaabo ka dhan ah Khadiija Maxamed Diiriye iyo wararkii ugu dambeeyay xiisada BSF iyo dani oo golaaday qodobo xasaasi ah qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxiibada inagu xiran oo idiin haynaa fadlan haddii aad nagu cusub tahay waxa si naxariis la kaaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saaro like na inagu dhiirigelisaan gambaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan insha Allah saaxiibayaal sida hordhac warkayga baad ku daawateen Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa musharaxiinta mucaaradka siiyay fursadii ugu dambeysay oo ku saabsan xaaladda doorashada Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa aqbalay soo jeedinta midowga musharaxiinta Soomaaliya ahayd in la iskugu yimaado shir ku saabsan doorashooyinka dalka sida ila wareediyo lagu kalsoon yahay inuu xaqiijiyeen qoraal ka soo baxay midowga 9 December ayaa lagu yiri golaha waxa uu soo jeedinayaa in la hakiyo doorashada oo la isugu yimaado shir wada tashi ah si loo joojiyo waxa ay ugu yeereen boobka lana xalliyo tabashooyinka laga qabo sida ay u bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka lana saxo habraacay habdhaqanka doorashada ayaa lagu yiri sida aan xogta aan ku helnay Rooble ayaa aqbalay shirkaasi ugu yaraan loo muujiyay golaha wada tashiga qaran oo ay ku midaysan yihiin oo Rooble iyo madaxda golaha ay doonayaan in la xalliyo tabashooyinka jira si kastaba shirkan ayaa waxa diidan qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada gaar ahaan madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor iyo Cabdicasiis Laftagareen madaxweynaha Koonfur Galbeed oo si aad ah uga soo horjeeda in shirkaasi la isugu yimaado talana la geliyo musharaxiinta mucaaradka maadaama aysan talahada dalka waxba ku lahayn labadan maamul goboleed oo kuwa ilaa hadda bilaabay doorashada golaha shacabka qaar kamid la qabtay ayaa mar walba Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxa uu soo qaataa tusaale oo inay maamulada kale ay ku daydaan sida lamada hogaamiye ee Axmed Madoobe iyo Siciid Dani si ay doorashada u bilaabaan oo loo maro habka ay mareen labadan madaxweyne oo ah dhinaca kale madaxweynayaasha kale Axmed Madoobe iyo Cali Guudlaawe Siciid Dani ayaa aqbalay shirkan inkastoo iyaguna ay diidan yihiin qaar kamid ah qodobada iyo shuruudaha kale ee midowga musharaxiinta maacada sida ay xaaladdu ku dhamaan doonto doorashada dhawaan dalka ka bilaabatay ayaa la filayaa in sida qorshuhu yahay sanadkan bilowgiisa la soo gabagabeeyo ama sanadka inuu soo foodle bilowgiisa la dhameystiro hadduu Rabbi raali ka noqdo dalkuna uu ka gudbo marxaladan adag insha Allah wasiir ku xigeenka gargaarka ayaa qaaday talaabo ka dhan ah wasaaraddaasi wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdirashiid Maxamuud Xasan ayaa war cusub ka soo saaray xiisada ka taagan mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaraddaasi Cabdirashiid ayaa markii hore xaqiijiyay inay jirto cabasho 16 shaqaale oo dhawaan la cayriyay ama laga cayriyay shaqada waxaana tilmaamay in talaabadaasi baalmarsan tahay sharciga wasiir ku xigeenka ayaa sidoo kale ku wargeliyay 16 shaqaale ee eedeynta u jeediyay wasiir Khadiija Maxamed Diiriye inay sii wataan shaqadooda inta ay ka helayaan cadaalad waxa la ogeysiinayaa shaqaalaha cabashadu soo gudbiyay inay shaqadooda sii wataan inta ay ka helayaan cadaalad ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasiir ku xigeenka sidoo kale waxa uu intaasi raaciyay ma dhacayso in xilliga kala guurka xuquuqda muwaadinka lagu xadgudbo iyadoo laga faa'iideysanayo xaaladda doorashada ugu dambeyn waxa uu hoosta ka xariiqayn arintan uu la wadaagay xafiisyada ay qusayso sida Ra'iisul Wasaaraha dalka si loo qabto ama loo qaado talaabo sharciga waafaqsan natiijada baaritaanka iyo la socda waxa la wadaagnay xafiisyada ay qusayso si loo qaado talaabo sharci ah ee ku haboon qof kasta oo tacaddi iyo falkaasi guracan ku lug lahaa ayuu mar kale qoraalkiisa ku yiri wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dalka qoraalkan ayaa uga sii daraya khilaafka haatan ka taagan wasaaradda gargaarka waxaana horay u jirtay 13 agaasime oo ka tirsan isla wasaaradda ay beeniyeen qoraalka baraha bulshada la isla dhexmaray oo sheegay in shaqada laga tiray shaqaale ka tirsan wasaaradda iyadoo ay sheegeen in warqadaasi ay tahay mid sharci darro ah ma ahan khilaafkii ugu horeeyay ee soo kala dhexgala wasiir Khadiija iyo qaybaha kale ee wasaaradda waxaana marar badan arrimaha soo farageliyay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya oo haatan mar kale la gaarsiiyay muran ka hareeyay wasaaradda maalmihii la soo dhaafay waxaa
si aada baraha bulshada loogu hadal hayay in dowladda Turkiga ay siisay dowladda Soomaaliya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo loo yaqaan droonka nooca uu Turkigu sameeyo TB2 taasoo sida wararku sheegayaan loo tababaray ciidamada ammaanka Soomaaliya si ay ugu adeegsadaan dagaalada. inkastoo warkan ay baraha bulshada ku hadal hayeen siyaasiyiinta iyo dadka shacabka haddana ma jirto cid xaqiijinaysa sax ahaanshiyihiisa, mana jirto cid ka tirsan dowladda oo arintaasi warbaahinta la wadaagtay ilaa iyo hadda. sidoo kale dowladda Turkiga iyaduna ma jirto meel ay ku sheegtay in ay dowladda Soomaaliya siisay ama ay ka iibisay diyaaradaha casriga ah ee aan duuliyaha lahayn ee TB2, balse warbixintan waxaynu ku eegaynaa waxa ay diyaaradahan Turkiga nashqadeeya iyo inta kale ay ka kala duwan yihiin ama ay ka howlgaleen. balse warbixintan waxaynu ku eegi doonaa waxa ay yihiin diyaaradaha Turkiga nashqadeeya iyo inta dal ay ka howlgaleen. diyaaradaha Bayraktar TB2 ayaa loogu talagalay fulinta weerarada iyo howlaha basaasnimada. Bayraktar TB2 oo culeyskeedu yahay 150 kg ayaa ka howlgeli kara masaafo dhan ilaa 300 oo kiiloomitir sida ay sheegtay shirkadda soo saartay diyaaradda droonka. waxa uu dhererkeedu dhan yahay 12 mitir halka uu jooggeedu yahay 2.2 mitir, waxayna leeyihiin awood ilaa iyo 300 oo shidaal ah. diyaaradahan waxay qaadi karaan markiiba 4 gantaal oo waaweyn. diyaaradda TB2 ayaa la sheegay in ay yihiin diyaarado tayadoodu sareyso kana tayo wanaagsan kuwa ay soo saareen dalal badan. diyaaradahan waxaa soo saarta shirkadda Bayraktar waxaana nashqadeeya wiilka uu sodoga u yahay madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. shirkadda soo saartay diyaaradahan ayaa sheegtay in ay ilaa hadda 160 diyaaradood oo nooca TB2 ay ka howlgalayaan dalalka Turkiga, Qatar, Ukraine iyo Azerbaijan. diyaarada droonka ee Turkigu sameeyay waxay fulin karaan howlgallo hubeysan tan iyo markii uu bilowday dagaalka Tigray ee waqooyiga Itoobiya. waxaa soo baxay warar sheegaya in ciidamada dowladda Itoobiya ay diyaaradahan u adeegsanayaan weerarada ka dhanka kooxda TPLF. wareysi uu siiyay telefishinka qaranka Major General Yilma oo ah taliyaha ciidamada cirka Itoobiya ayaa xaqiijiyay in ay adeegsanayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ilaa iyo hadda oo ay dagaaladu socdaan, waxaana la sheegay in diyaaradahan ay qayb ka qaateen dagaalka ciidamada federaalka Itoobiya ay kula jiraan xogaga Tigray. sidoo kale waxaa la sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga uu furo u ahaa guushii Azerbaijan ay ka gaartay dagaalkii ay la galeen Armenia. diyaaradahan ayaa waxaa sidoo kale uu adeegsaday dagaaladii gudaha dalka Suuriya uu la galay kooxda KBB. dagaalka Liibiya ayaa kamid ah meelaha ay ka fuliyeen howlgallada maadaama dowladda Turkigu ay taageerto xukuumadda Liibiya kana soo horjeeda xoogaga ka soo horjeeda dowladda. madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sanadkan dhexdiisa booqasho ku tagay dalka Angola, wuxuuna xilligaas sheegay in ay codsatay dowladda Angola inay hesho diyaaradaha dagaalka ee Turkigu sameeyo. toddobaadkii hore Turkiga ayaa la sheegay inuu ballaariyay dhoofinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee caanka ka ah dunida, isagoo heshiis la galay dalalka Morocco iyo Itoobiya. iyadoo ay jirto tallaabada uu Turkigu ku ballaarinayo geynta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn dalalka Afrika, ayaa haddana waxaa soo baxaya in dowladda Soomaaliya uu siiyay, hase yeeshee wararkaasi weli lama hubin ama ma cadda. qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa kamid ah fallaagada Tigray ee TPLF ayaa jimcihii beenisay magaalada Komboja ee waqooyiga Itoobiya ay ka biliqaysteen kayd cunto loogu talagalay caruurta ay nafaqo darradu hayso. diidmadan ayaa imaanaysa maalin kadib markii afhayeenka qaramada midoobay uu u sheegay in hay'adda cuntada adduunka WFP ay joojisay qaybinta raashinka kadib biliqo maalmihii la soo dhaafay loo geystay bakhaaro ku yeelay Komboja. sida muuqatana ay geysteen qaar kamid ah fallaagada Tigray iyo xubno ka tirsan dadka deegaanka. waxa uu sheegay in la xaday cunto aad u badan oo ay ku jiraan waxyaabaha nafaqeynta ee caruurta ay hayso nafaqo xumada loogu talagalay. TPLF ayaa bayaan ay soo saartay jimcihii ku sheegtay in arintaasi ay tahay eedeymo aan sal iyo raad lahayn. TPLF ayaa dhanka kale hay'adda qaramada midoobay gaar ahaan WFP ku eedeysay in ay ka gaabiyeen ama ay ka cagajiideen qaybinta gargaarka bini'aadanimo. waxaa saaxiibayaal intaas ayaa kusoo gabagabeynayna warkii aad ka daawaneysaan Runsheeg TV. fadlan haddii aad nagu cusubtahay waxaan si naxariis la kaaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saadho like in ugu dhiirigelisaan gambaleelka furata si warbixinada ugu dambeeya idinkugu soo dhacaan idanka Allah insha Allah.